khubarada lacagaha ee Soomaaliya waxay aaminsan yihiin in soo baxa shirkadaha forex ay dalbaxo weyn u keeneen dhaqaalihii waddanka, gaar ahaan xilli ay sidoo kale jiraan caqabado waaweyn oo soo food saaray waddanka sida COVID-19 oo dhaawacay dhaqaalaha, fatahaado iyo ayax baabi'iyey dalag iyo dhulbeereed badan. dabaqadaha ku tiirsanaa inay maalin walba soo saartaan noloshooda ayaa ugu badnaa dadka lacagaha gashtay shirkadaha forex. shirkadahan ayaa dadka maal gashaday waxaa ka mid ahaa bajaajlayaal, xoololey, gedisley, ganacsato iyo kumanaan kun oo qof oo kale oo ah dad garab rarata ah. dadka qaar waxay lacagahooda kala soo baxeen shirkado ay ugu jireen ama akoonno ay ugu xaraysnaayeen. shirkadahan ayaa adeegsaday dad magac ku dhaxlay bulshada oo ay ka dhigteen tusaale si dadka aan iyaga aqoonin ay ugu soo hirtaan lacagna ay u gashtaan. waxaa ka mid ahaa dadka ay adeegsadeen xildhibaano, ganacsato iyo odayaal. waxay sidoo kale xayeysiisyo ku samaysteen Facebook iyo baraha kale ee bulshada. saraakiisha dowladdu waxay ganacsigan ku tilmaameen Ponzi scheme, kaasi oo ah in lacag laga qaaday macaamiil la siiyo kuwo kale, iyadoo lacagaha soo gelayana ay ku xiran yihiin inta macmiil ee cusub ee mar walba lagu qanciyo inay lacaga ku soo darsadaan, kuwaasi oo lagu soo xerogeliyey inay faa'iido dhaqso ah helayaan. bankiga Soomaaliya ayaa hore u amray in shirkadahan albaabada la isugu dhufto. bishii Maarso ee sanadkan ayaa galka baaristu waxa uu barnaamij ka sameeyey shirkadahan ay kumanaanka qof ee macaamiisha ah ay ku sirmeen. barnaamijkii hore galka baaristu uu ka sameeyey meheraddan waxaan ku waraystay dhowr qof oo ku qanacsanaa shaqada ay shirkadahani hayeen, isla markaana diiday inay ku qancaan eedaha loo jeedinayay shirkadahan ee ahaa inay khayaano ku shaqaynayaan. waxaan dib ugu laabtay qaar ka mid ah dadkii aan hore u waraystay horraantii sanadkan, waxaanan weydiiyey inay aragtidoodii shirkadahan wax iska beddeleen. dadkaasi aan waraystay waxaa ka mid ah ninka magaciisa ku soo koobay Cabdiqaadir oo ii sheegay inuu xilligan ka qabo fikrad ka duwan tii hore. xilligan waxa uu qabaa inay meheradahani ku dhisan yihiin khayaano, waxaana uu maal gastay shirkad lagu magacaabo Kobciye oo uu wax ka aasaasay mid ka mid ah asxaabtiisa, kaasi oo ay wada joogeen xilliga aan waraysanayey. barnaamijkan horta fadtiisa hore markii uu bilaabanayay dadka waxaa waaye magaalada waa kala socotay, lacagta waa la siinayay. markii la gaaray corona virus xaaladdu xumaatay bishii Abriil ilaa iyo up to now bishaan marayna bishii 8aad waxa lacaga lama hayo. lacagta waxaa la leeyahay Turkiga ay taallaa, ilba bilka dambeed waxaa la leeyahay bishaan la qaadanaya. marka barnaamijka kulley haddaan fiiriyo barnaamij wuxuu weligii isku dhammaaday. markii hore wada hadallay aad baad ugu faraxsanayd, bil kastana lacag baad helaysay, bal iiga sheegtee xilligaas. marka hore waa kulley saan kuu sheegay, marka hore waa soo jiidashay leedo waxaa waaye barnaamijku waa nala ficnay, waxaan u haysanay barnaamij dhaqaale laga samaynayo. bal marka Soomaali waa taqaanaa meesha lagu yaaca way ku yaacdaa mawt. shirkadda Kobciye ee lacagaha ka qabatay Cabdiqaadir gebi ahaanba xilligan way kacday. dadka shirkadaasi wax ka aasaasayna waxaa ka mid ah Maxamed Ibraahim Macallin. shaqadan waxba kama aqoonin, rag maarta oo nin kale saaxiibanahay oo ii keenay oo uu leeyahay waa macallimiin way shaqada yaqaana way u yiri meeshii aan u dhiibnay. raggii baahde bil January 1 wixii aan furnay, January marka ay dhamaatay lacag yar la bixiyay, Febraayo marka ay dhamaatayna meeshii laga rabay in lacag la bixiyana waa iyaga dhaqaajiyay. dadka ay lacagaha ka qabteen ma la socotaa dadkaas tiradooda intay tahay? akoon ay noo soo direen ay leeyihiin lacagii oo kuwaana meesha ugu qasaareen. marka waxay ku qornay 250 lacag total guud ahaan oo macaamiisha laga qaaday 250 ay noo sheegeen inay run tahay iyo inay been tahayna ma sii karna anaga. $250,000 miyay wada maqan tahay mise qayb ka mid ayaa la hayaa hadda oo bankiga ku jirta? $1 lagama hayo, $1 lagama hayo. adiga imisa kaa maqan marka shakhsiyan? $13,000. maxaad ku dhihi lahayd dadka Soomaaliyeed ee weli aaminsan inay tahay shaqo xalaala oo lacag laga helo? hormay batatan baan waxa dadka aaminsanahay waxaas ganacsi been abuur inuu yahay wax ka jira ma aha. asaaska shirkadda Kobciye kadib waxaa isaga madaxiisa iyo aqoonta ay u lahaayeen darteed lacaga ugu soo darsaday shirkadda ilaa 25 qof. Axmed Cabdisalaam Muuse waxa uu ka mid ahaa dadka habkaasi lacagta ugu soo darsaday shirkadda Kobciye. wallahi anadu waxay u maqan $1,250. waa gartay. saaxiibka magaciisa baad ku aamintay? saaxiibka magaciisa ku aaminay, asaga wajigiisa magaciisa ku tagay. marka mar hadda wajigiisa ku tagay inay ka maqan tahay lacagta anana iga maqan tahay waxaad kulley waa meesha marka adiga haysana helaada. raje intee leeg baa kugu jirtay inaad lacagtaa heli doonto? wallahi dad ku sheegay macnaha ilaa hadda niidii ma gashay lacagtaas hadda heli doontaaba. mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee soo baxay waa shirkadda Future Traders oo muddo kooban ku qabatay lacag ka badan $5 milyan sida ay muujiyeen xogta ay hayso dowladda Soomaaliya.
kadib markii ay laamaha amnigu dhaceen xafiiska shirkadaasi waxay sheegeen inay heleen dokumentiyo muujinaya in la helay oo keliya raadka lacaga lagu bixiyey mushaahar ahaan iyo qaar dad loo celiyey iyo ilaa $1 milyan oo bankiyo kala duwan ku jirta lacagtaasi oo haatan dowladdu ay ka xayirtay mulkiilihii shirkadaasi Looga Yuusuf Cali. Dokumentiyada ay dowladdu heshay waxay muujinayaan inay ku maqan yihiin Looga Yuusuf Cali iyo shirkadda Future Trader lacag dhan $3,700,000 oo dollar. Dadka ila soo xiriiray waxay ii sheegeen in shirkadaasi ay lacaga badan uga maqan yihiin. Mulkiilaha shirkaddan waxaa horraantii sanadkan xiray ciidamada booliiska Soomaaliya kuwaasi oo markii dambena damiin ku sii daayay. Looga Yuusuf Cali waa magaca ay macaamiishu u yaqaanaan isla markaana uu u sheegay saraakiisha amniga markii la xirayay. Sidoo kale waxa uu ku qoran yahay magacaasi dokumentiyadii damiin ahaanta loogu sii daayay 7 Abriil 2020. Magacaaga laba magac baad xustay Looga Yuusuf Cali iyo Maxamed Cawaale. Magacaaga saxda waa maxay? aniga magacayga saxda ah waa Maxamed Maxamuud Axmed Xaaji Faarax kuna dhashay magaalada Hadarsimo ee gobolka Sanaag. Magaca labaad waa magac qofku loo magac waa yeelan karaa. Misaal oo kale qofka xataa iska hal magac xataa saddex magac qof waa yeelan karaa. Anigu baasaboorka waxaan qaatay 2015 baan qaatay 2015 wey. Isma muqdisada xaween safarkii ugu horeeyay ku tagana wuxuu ahaa 2016 bishii saddexaad ku tagay. dad badan baa hadda waxa laga dhigayaa magaca saxda oo arkay dad badan wax ka qorqoraya dad badan wax ka yiri magaca anigu waa samaystay oo xaween qaab dadka muqdisho aan xaween aan samaystay magacayga bedelay si hadda u taan xaween aan la soo qaban saas oo kale aan ku taxadiriya. baasaboorka anigu dir wax baasaboorka laga bixiyay 2015 saddex sano ka bacdi muqdisho waa tagay. hatta marka baasaboorka qaadanayay حتى نيدي يكون شو دحين ممكن تكون وانضم فاهم ممكن أكيد ما كباهيات أنا جديد كونية وما كان يخص فينا المرجع عقاصه أيام قصة ويستي لكن مرجع أنا رو أحس يقولي هاي معها مرجع رسمي جاي ومحمد أحمد عواله أربعة إلى من سنة ويا أحد والله حويا اللي يقدر محمد عوال لكن مرجع يستحضر ويقول عليا تذكر أول شيء يذكر الصومالية وحليها واحد مرجع محمد أحمد حاجي فرح marka Looga Yuusuf Cali oo dokumentiyadan dawladdu hayso ku qoran waa magac been abuur ma waa magac baahiyaad anigu aan qabo iyo dokumenti xalay iigiisay isoo ku soo koobiya. warqadda damiinka ee lagu sii daayay waxa uu ku cadeeyay inuu hayo $3,700,000 oo ay leeyihiin dad shacab ah. waxaa sidoo kale warqadaasi uu ku cadeeyay ballanqaad ah inuu u celin doono lacagtaasi dadkii uu ka arooriyay muddo 60 maalmood gudahood oo ka bilaabanaysa 8 Abriil kuna eg 8 Juun 2020. haddii uu muddadaas ku celin waayana waxa uu qoray inuu diyaar u yahay in sharciga lagu qaado. Looga Yuusuf Cali xilligan waxa uu bixinayaa macluumaad ka duwan kan ku qornaa warqadda damiinka. waa la soo daayay waxa lagu heshiiyey in kombiyuutarada laga qaaday iyo farashii dadkii dokumentiga maalgashan xismiga ah ee la qaaday iyo xarunta FRC la geeyey in la keeno lacagta xayiraadda laga qaado lacagta la siiyo. dilban xawiyay suugayay oo deeshadeyn laga qaado xayiraadda qolaha oo dadka waxooda la siiyo systemka masuuliyadda shirkadda way hore u shaqeyn jirtay si dalka laga siiyo maadaama ay cidi hadda yeelanaysaa oo hadda aniga igu dhegan oo beela waxa uu naga qaatay ama wuxuu naga lumsaday ay sii jireen. marka waxay wax ka dhamaan leeyihiin waa xarunta FRC oo hadda dadkan sidoo haysata dokumentiga dadka waxa weeyaan haysata kombiyuutarada shirkadda haysata ilaa hadda waa laga kaleeyay dadka waxooda siiyo loo fasaxo dadka la siiyo. aniga bilan suuqin meesha marka tijaabada safar baan ku ahaa oo ku yimid shaqo badan baan noqon jiray waa ka yimid markii dambe oo de institution xamal jira handada badan leh waxa markaan deeriyay wixii wax raba oo dadka aan aqoon siiyo asagayda siiyo handada badan baan xukumay. marka hadda geesan baa ku suganahay geesan joogaabaan marka waxaan leeyahay dadka haddii waxooda la haween siiyo waxaan ka dhacay ma jirto wixii aniga dhankayga soo jireen intii aan hargeysa ku sugnaa waan dadka waxoodii siiyey. hadda waqtigii ballanteed qabsatay markii lagu soo deeriyay labada bilood waxay ku bixday Juun 8. marka maxaad ugu bixin weyday waqtigeedii lacagii ay ahayd inaad bixiso goormaad ku bixinaysaa? laba arrimood wey. arrinta koowaad waxa weeye marka muqdisho bil aan ku sugnaa waxay ahayd lacagta si xaraaqda laga qaado oo dadka waxooda la siiyo. boqol Soomaa qofka labaad waxa weeye in kombiyuutarada soo celiyo dokumentiga shaqada laga qaado soo celiyo ayaan ku weydiinayaa qaabkee wax loo bixin karaa ku weydiinayaa qaabkee house qofka dambi waa geli karaa laakiin materialka dambi ma geli karo. sidee lixii toban kombiyuutar loo qaatay dadka dokumentiga loo qaatay dokumentiga dadka hadda dhexyaala hadda FRC dhexyaala waxa lagu dari karo iyo waxa laga saari karaa war mahaya. qofku isagu dambi waa geli karaa hal xiro oo aniga kaloo diidaniga laakiin hantidaadii xaqka ku ahayd ee asalka ahayd baan qaadanaya oo xoog baan ka qaadanaya
وحسابها دي بالشو كل وريليا وصار كل بسيط بعض الحربة حسابات الوقاح حيريا دكتور وقاح قصة وقوة يلا القرآن وصول بشكل نوتاج الثانية فاصل معقول قمش siideynta looga Yuusuf Cali waxaa gacan ka geystay laba xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya mid ka mid ah xildhibaanadaasi waa Axmed Ismaaciil Maxamed waxa uu booliiska Soomaaliya u qoray inuu damaanad buuxda oo ah mid nafsi iyo maalba ka yahay looga Yuusuf Cali waxaana damaanad qaadaya ayuu yiri inuu celiyo lacagta uu u hayo shirkadda Future Trader muddo 60 casho gudaheeda lacagtaas oo cadadkeeda uu qoray inay tahay $3,700,000 xildhibaan Axmed Ismaaciil oo uu la xiriiray galka baaristu waxa uu bixiyay fasiraad ka duwan tan ku qoran damaanadda uu siiyay booliiska waxaana uu sheegay inaysan dhinaca looga Yuusuf Cali waxba ka qaldamin waxaan ka soo xiganayaa oo uu ii sheegay sidan waxay ahayd in la siiyo dokumentiyada laga hayo lacagta ka xayiranna xayiraadda looga qaado laakiin waxaa xusid mudan in warqadda damaanadda ah ee uu qoray xildhibaan Axmed Ismaaciil aysan xusayn in bixinta lacagtaasi ay shardi u ahayd in dawladdu ay celiso dokumentiyada iyo kombiyuutarada ay ku shaqaynaysay shirkadda Future Trader waxaan xildhibaan Axmed Ismaaciil weydiiyey inuu wax ka leeyahay eedda ah in lacagta maqan aan lagu bixin waqtigeedii iyo inuu looga Yuusuf Cali ka baxo magaalada Muqdisho waxaana uu ku jawaabay eedda waxaa iska leh ciddii lacagta xayirtay lacagtiisana u celin weyday waa loo hanjabay taasi ayaa sababtay inuu ka baxay Muqdisho kasoo in shirkadahan ay lacaga malaayiin dollar ah uga maqan yihiin dad masaakiin ah waxaa dhinaca kale ay shaqaynayeen sharci la'aan maadaama aysan ruqsad ka haysanin hay-adda u qaabilsan maamulka iyo maaraynta lacagaha ee bankiga dhexe waxa uu hore u soo saaray digniino ku saabsan inaysan dadku ku sirmin shirkadaha forex cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi waa guddoomiyaha bankiga dhexe ee Soomaaliya shirkadahan dalkeena ka jiray muddada gaaban dhibka badan maqasheen dadka Soomaaliyeed cabashooyin badan ka muujiyeen waa shirkado waaweyn oo jira maaha waa dad u arkay fursad ay lacag degdeg ku heli karaan oo la baxay magac shirkadeed markaana si ay dad ugu khiyaameeyaan ballanqaadyo badan u sameeyey oo faa'iido inay degdeg u siinayaan dabeedna dad badan lacag ka aruursaday iyagoo wax sharciyada weliba u haysan dabeedna dad badan xoolahoodii gacanta u galeen muddo yaroo koobanna helay fursadda ay wax ku khiyaameeyaan dabeedna kala isku wada dayday oo tira ahaan laga yaabee muddo aan ka badnayn 3 ilaa 4 bilood baa laga yaabaa wax 80-90 magacyo shirkadeeda oo xayeysiisa meel walba ay ka bilowdeen xaqiiqada shirkadahaas waxa weeye waa un arrinta opportunity-ga ama fursadda ay u arkeen dadka ka dambeeyey inay wax ku qaldi karaan wax sii raagay may ahayn wax hore u jiray oo ay dadku isticmaali jireen ama la yaqaanay ma ahayn iminkana waxaan filayaa in kolley anagu macluumaadkaanu haynay inaanay jirin shirkado forex ku shaqaysta oo hadda wax cabasho oo baryahan dambe cusub oo ka yimaada maanaan arkin dowladda Soomaaliya waxay diiwaan gelisay ilaa 91 shirkadood oo ah kuwa forex hase yeeshee waxaa qaatay shatiga wasaaradda ganacsiga iyo warqadda nootaayada ee gobolka Banaadir ilaa 36 shirkadood oo kaliya inta kale ma haysanin wax qoraalo sharci ah sidaasi oo ay tahay shatiga ay ka qaateen wasaaradda ganacsiga iyo nootaayada gobolka Banaadir ma aha sharciyada ay u baahnaayeen si ay u shaqeystaan gudoomiyaha bankiga dhexe waxaan weydiiyey in shatiyadaasi ay yihiin kuwa ay shirkadahan ku shaqayn karaan oo sharci ah ma jiro horta hay'ad bankiga dhexe ka haysato sharci ama ruqsad ama license ay ku adeegato oo forex ka shaqeysa haddii ay qaarkood waxay yidhaahdaan hay'ado kaloo dawliyaan ka haysatana laakiin dee sharciga siduu qabo adeega maaliyadda waxa looga dambaynayaa bankiga dhexe markaa isagoo ama ha noqdo adeeg sharcigiisu jiro ama mid aanu jirin sidaa waxa qoraya sharciga bankiga dhexe ku salaysan yahay marka dee ma garanayo runtii ruqsadahan kale aad sheegaysa ay haystaan way jiraan dad ku doodo oo aan ka maqlo meelahan saxaafadda ka hadla ruqsad baan haysanay laakiin runta haddaan kuu sheego ma jiro ruqsad wasaaradda ganacsiga waxay bixisaa ruqsado gaar ah ruqsadaha la regulate gareeyo ama la xisaar nidaamisa iyagu uma xil saareen inay bixiyaan dowladda Soomaaliya waxay xayirtay lacagihii laga helay akoonnada shirkadahan oo ay ku lahaayeen bankiyo kala duwan warar lagu kalsoon yahay waxay galka baarista u sheegeen in dowladda Soomaaliya ay xayirtay ku dhawaad $20 milyan
hase yeeshee lacagaha ay shirkadahan qabteen waxaa lagu qiyaasay $100 milyan. tusaale ahaan mid ka mid a shirkadaha oo la aaminsan yahay inay qabatay inta u dhaxaysa $20 ilaa $30 milyan, waxaa akawnkeeda laga helay $1,300,000. shirkad kale waxaa akawnkeeda laga helay $1,500,000. hase yeeshee dhaqaalaha ay qabatay waxa uu ka badan yahay $5 milyan. macluumaadka wareegalka baaristu waxaa ka muuqata in saddexda shirkadood ee dadka ugu badan lacagaha ka qabtay ay kala yihiin Himila Forex Trading oo lacag ka qabatay ugu yaraan 1,500 qof, Abal Traders oo lacag ka qabatay 870 qof, iyo Future Traders oo lacag ka qabatay 850 qof. Gudoomiyaha bankiga dhexe waxa uu sheegay in tallaabada xigta ay tahay in dadka ay xooluhu ka lumeen ay u dacwoodaan hay'adaha sharci ilaalinta. tallaabada xigta waxa weeye horta dad badan baa runtii waxyaalo ka soo gaaray oo ku aydoobay ama xoolo kaga lumeen. dadka waxa la gudboon inay u dacwoodaan hay'adaha fulinta, sharci fulinta ama sharci ilaalinta, booliska iyo xeer ilaalinta iyo kamid yihiin. iyaga laga rabaa cidii wax ka dhacday inay dacweeyaan, kadib hay'adahaasuna waajibkooda ka gutaan. waxaan u malaynayaa tallaabada ugu habboon dadka wax ka maqan yihiin ay qaadi karaan waa taa. shirkadaha laftoodii hadda ma jiraan oo wax weli hawshii problemkii hawl taagan, dhibaato taagan maaha ah in sidii hore waa ka bedelan tahay, waa wada xidhmeen annaga intaan u warhayno. marka waxaan u filayaa tallaabada labaad inay tahay dadka xoolahooda ku maqan yihiin inay raadsadaan oo qof waliba qofkii wax ka qaaday waa yaqaanin iyo ciddii wax ka qaadee ay u dacwoodaan oo dacwado uga furtaan hay-adaha loo dacwoodo ee dembiyada wax ka qabta. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo. mahadsanid Haaruun Macruuf oo barnaamijka galka baarista inala socodsiinayay. haddii aad ku cusub tahay fadlan channelkan subscribe saar calaamadda gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan fiidiyoyada ama muuqaalada kale ee aanu duubnay ama aan hadda rabno in aan duubno. share dhe oo sii faafiyo lana wadaag saaxiibada. haddii aad faalo qabtana commentiga hoose noogu soo gudbi.